هون هون كل مكان يا ناس يا عالم أناشد أي دولة أي عالم. dal kasta oo Yurubta ah wuxuu leeyahay dhaqan iyo caadooyin u gaar ah. haddii ay waalidka ka soo dacwoodaan carruurtooda, waalidka waa la xirayaa. haddii ay carruurta waalidka ay dhibaan, waalidka bannaanka ayaa loo keenayaa. qisadan waxay ku dhacday hooyo iyo aabe oo islaama. waxaa laga qaatay carruurtoodii marka ay rabeen inay keenaan meel ay ka dhow yihiin islaamka. carruurtii waxa ay noqdeen kuwo seegseeg ah. intaan muuqaalkan xiisaha iyo xamaasadda gudagelin, waxaan saaxiibkayga sharafta leh kaa codsanaynaa inaad lacagta noo saarto, aad u sii sheergarayso saaxiibadaada kale saan u helno saaxiib adiga oo kale. aan gudagalno muuqaalkeenna xiisaha badan. waxaa dareemi karo marxaladan hooyo kasta oo qurba joog ah marka ay carruurtooda ka soo dacwoodaan, iyagu xabsi la geliyo, bannaanka looga saaro. xanuunkan waxaa dareemi karo qof dareen leh. waxay u qaalinaysaa carruurteeda, waxay jecleed inay la aado meel ay ka dhow yihiin islaamka. waxay la dagaalamayaan islaamka, waxayna rabaan inay caqiidadooda ku shubaan. ma rabaan caqiido kale inay maskaxdooda qaadato. gaalka wuxuu la dagaalamayaa maskax kasta oo dhalinyara. waxay rabaan dhalinta inay maskaxda ka degaan. hooyo kastana haddii ay muranka badiso, albaabka ayaa u furan, bannaanka ayaa laga keenayaa. haddii ay ku dacweeyaan, xabsi daa'im, balse ciyaalkaaga waa lagaga wareegayaa. waxaa sidaan fahmi karo, dareemi karo qof kastoo qurba jooga. dhalintu maanta waxay noqotay kuwo waalidkood dacweeyo, soo xiro, iyaguna ay ka amar qaataan. waxay u qeylinaysaa siday cadaalad ku heli lahayd, carruurteedana ku heli lahayd.